السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو مجعي وياهي عاشو حسين محمد oo ku nool dalka lagu leeyahay Seattle Washington degmada toddobaad oo maxay districtka ah Soomaaliyeed oo waliba Soomaaliyeed oo degan state of Washington inaan jiifka ka kacno oo maanta aan soo istaagno oo xaqeena aan u istaagno oo dadkeena aan u istaagno iyo diinteena aan u istaagno Facebook-gayga waxaan ku soo qoray maxaa la dhahaa madaxweynaha cusub oo qabsaday Donald Trump sharci uu rabo in maxay ahayd qofka muslimka ah oo wadankan ama ha ku dhasho ama ha imaado in ay register gareeyaan maantay waa maalinkii qabiilba waa u kacnaa maanta waa diinteena maanta waa dadnimadeena waa nii soo wada qoray nambarada every single representative ka ah maanta inaa wacdaan dadka nimatala maxay tahay oo campaign gareyseen oo u orodeen oo maalkiina siiseen inaa maanta tiraadaan Mareykan baanu nahay diinteenana kuma register garoobena Soomaaliyeed ka kaca maanta haday jirto tolla ayay maanta ay taagan tahay Soomaaliyeed fadhiga ka kaca Soomaaliyeed fadhiga ka kaca hadda waxaan naga dhiman 218 vote baan naga dhiman hadeertaan oo baraf uu ka da'ay Seattle baan waxaan ka imaanayaa magaalada Olympia lagu leeyahay Soomaaliyeed fadhiga ka kaca nambarada waa nii soo qoray hadaad districtgiina aydan aqoonin dad yaqaan waa jiraan isoo inbox gareeya today is the day to my dear friends that are loyal and allies of Muslim Americans. Today, we're asking you to support us, to stand with us. There is a bill in the House. We need you guys to call your elected official to tell them that we do not need a Muslim registry. Please call your elected official, not only because you care for your neighbor as Muslim, but is because we are Americans and that this registry is against constitutionally and the fabric of being a United States citizen. We ask in every shape or form to stand up with us, not against us, but with us. And with that, we are asking you to call your elected official and tell them it's time to support that bill. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.